maanta oo ay tahay 12 December waxaan jecelahay inaan bulshada reer Somaliland la wadaago waxqabadka wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska shaqagalintu samaynta fursado shaqo oo ay dhalinyaradu ka faa'iideystaan waa mid ka mid ah tidxaadyada halbowlaha horumarka bulsho iyo shacbigooda dhaqan haweenka carruurta naafada iyo dadka nugulka warhayntoodu waa mid muhiim u ah bulshadeena dalku waa dalkaygii dadku waa dadkaygii duugayga noloshana cidan uga dambeeyo ina doorka laytan maxaa haddaba uga hirgalay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland sanadkii galbaday ee 2020 qodobada kala ah arrimaha shaqogelinta arrimaha shaqo abuurka arrimaha bulshada arrimaha haweenka arrimaha carruurta barnaamijkan ayaynu ku eegi doonaa Somaliland وأقول وليسنود قبل ماذا شرفتنا قد سعد كنا بدينا جايين وقالي وهند شام حرسي أهلا وزيرك وزارة شغلينك arrimaha bulshada iyo qoyska oo leh dhamaan bulshada reer Somaliland waanu jecelahay waxaanu xil iyo dadaal iska saarnaa inaanu dhamaantiin idin gaarsiino adeeg idin ku filan waxaanu se idin ka qancinaynaa waxa naga maqnaada inaanan hakranin oo aanay ahayn waxaanu cunnay ee ay yihiin waxaanu kari weynay waana mahadsantii